السلام عليكم صاحبيال سؤال وهذا ميل walba adduunyada calka joogtaan waxaan rajaynayaa inaad caafimaad qabtaan sanadii lixaad ee hijriyada nabiga sallallahu alayhi wasallam habeenada kamid ah waxa uu ku riyooday asaga oo asxaabtiisa la galaya masjidul haram beedka ilaahay xurmada leh kaabada asagoo galaya asxaabtiisuna ay la socdaan ayaa nabiga sallallahu alayhi wasallam uu ku riyooday hadaba daawada ambiyada riyadoodu waxa ay la mid tahay sidii waxay ku soo degay oo kale waa xaq laga yaabay aniga adigu hadaan riyoono in riyadaasi ay ku dhamaato mala awaal iyo wax aan jirin laakiin ambiyada riyadoodu waa xaq oo marnaba ma ahan qaraw iyo wax lamid hadaba riyada kadib nabiga sallallahu alayhi wasallam saxaabada ayuu u sheegay riyadaas inuu ku riyooday nabiga sallallahu alayhi wasallam ayagoo umreysanaya ayuu halkaas inay tagayaan masjidul haram ayuu nabiga sallallahu alayhi wasallam u sheegay deedna saxaabadii aad bay u farxeen maadaama in muddo aanay saxaabada umreysan oo hilow iyo shooq badan uu hayay baytul haram waxaana uu sheegay nabiga sallallahu alayhi wasallam inuu riyada ayada ku fasiray in ay umreysanayaan oo umra ay aadayaan waxaana uu amray in la diyaar garoobo oo arinta ayada loo diyaar garoobo muslimiintiina farxad ayaa la isla celin waayay oo dhamaan way ay diyaar garoobeen saxaabadii nabiga sallallahu alayhi wasallam diyaar garoob kadib waa uu soo baxay oo saxaabadii ayuu la soo dhaqaaqay 1400 oo saxaabi ayaa soo dhaqaaqday oo magaalada Madiina ka soo dhaqaaqday kuwaas u socda umro iyo inay aadaan Makka al-Mukarrama baytul haram nabiga sallallahu alayhi wasallam markii uu soo dhaqaaqay meesha la yiraahdo Dhul Xulayfa ayuu yimiday deedna halkaas ayuu ka xarmaday umradii ayuu halka ka niyeestay halka marka la marayo nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa uu diray oo sahan uu diray saxaabi la yiraahdo Bisr ibn Sufyan ayaa waxa uu ku yiri orod oo tag oo Makka aad iga warkan nimanka Quraysh waxa ay sameynayaan iyo khabarkooda kadib markii ay maqlaan inaan soo aadnay waxa ay sameynayaan halka aad oo sahan ahaan aad ay warbixintooda noo keen saxaabigii Bisr ibn Sufyan waa soo dhaqaaqay Makka ayuu yimiday agaarkeedii Quraysh ayaa xaaladii ayuu arkay in Quraysh markii ay maqashay Muhammad ayaa soo dhaqaaqay asoo doonaya baytul haram hada ogow dagaal qaatay wax ka badan 10 sano ayaa nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo u dhaxeeyay nimankan Quraysh oo waati dagaalkii Badr dhacay oo ay ku dhamaadeen nimankii madaxweynaha Quraysh ahaa oo 70 geeriya iyo 70 maxaabiis waati ay muslimiintu ku dhigeen Uhud baa ku soo xigay waati la isku dhamaaday dagaalkii Khandaqa u dambeeyay oo waxa weeye hal sano ka hor ahaa ayaa asna dhacay oo magaalada Madiina ay ku hareereeyeen nimankii kufaar Quraysh iyo axzaabtii kale la socotay Yahuudiga nimankii kale Qadfaan ahaa hadaba daawada colaadaas faraha badan ayuu ay jirto wax heshiisna uu san dhicin ayuu nabiga sallallahu alayhi wasallam la dhaqaaqay 1400 oo saxaabi waxaana uu aaday Makka al-Mukarrama iyo baytul haram si uu halkaasi umro uu soo guto maadaama uu ku riyooday Quraysh markii ay maqashay Muhammad oo ciidankiisa wata ayaa soo socda hubka ayay boobeen dhamaantoodna waa diyaar garoobeen dagaal ayayna u diyaar garoobeen waxaana ay isku dhaarsadeen inuusan Muhammad galaynin Kaabada sababtoo Kaabada ayaga ka mas'uulaha ayaga maamuliyay ciday doonaana waa ay u diidi jireen ciday doonaana waa ay u fasaxi jireen labada wada intaas markay dhacday nabiga sallallahu alayhi wasallam warkii uu maqlay saxaabadii ayuu la tashtay wuxuu yiri nimankii ayaga Quraysh dagaal ay diyaar u yihiin maxaynu yeelnaa saxaabadii nimbar ra'yiba ku dhiftay qaar baa yiri rasuulka Allah waan hubaysanahay ubkeenana waan wadanaa gaalada ayagana dhowr mad baan aragnay waxba noo sheegi maayaan aan dhagta dhiig u darno aan la dagaalano Abu Bakar ayaa istaagay yiri rasuulka Allah wixii aan u soo baxnay oo Madiina aynu u soo baxnay umra ay ahayd umradeen aynu aadno oo hawsheena socodkeena iyo qasadkeena aynu soo baxnay aan aadno cidii naga hor istaagtana aynu la dagaalano laakiin wixii kale jaanibiya yaanan ku mashquulin nabiga sallallahu alayhi wasallam saxaabadii wuxuu ku yiri umdu bismillah ilaahay magaciisa ku socda sidii ayaa lagu soo dhaqaaqay waxaana go'aan ku ahaa in umra la aado qofkii umrada diiday baytul haram iyo saxaabadii muslimiinta kala dhex galana inay muslimiintu ay la dagaalamaan Khalid ibn Walid oo xilliga asaga aan islaamin wali mushrik ah oo kaasoo ahaa hogaamiyaha ciidanka Quraysh ayaa wuxuu la soo dhaqaaqay ciidan aad u weyn asoo doonaya inuu nabiga sallallahu alayhi wasallam ka hor istaago gelitaanka Kaabada saxaabigii Bisr ibn Sufyan markii uu keenay warka ayaga ahana nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa uu sameeyay waa uu ka leexday ciidankii Khalid wada oo aan la wada garanaynin oo qardajeex oo dhabay ah ayuu saxaabada la maray nabiga sallallahu alayhi wasallam ilaa uu dul istaagay oo sidii uu socday nabiga sallallahu alayhi wasallam uu Makka duleedkeeda istaagay meel la yiraahdo Hudaybiya markii nabiga sallallahu alayhi wasallam uu soo gaaray ayaa waxa istaagtay hashi nabiga sallallahu alayhi wasallam oo qaswa la dhihi jiray hashi markay istaagtay saxaabada qaar ayaa waxa ay yiraahdeen hashi waa ay daashay oo socodka ay ka daashay nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa yiri ma aanay daalin dabeecadna uma lahan inay daasho hashan laakiin xabasaha xabisul fil waxa hashan xabisay oo socodka u diiday allihii maroodiga ka celiyay Makka al-Mukarrama oo taaynu soo marnay in ninkii Yemen fadhiyay ee xabashiga ahaa Abraha la dhihi jiray ku duulay Kaabada inuu dumiino oo isku dayay ilaahayna waa kii halka ka celiyay oo maroodigiisii asaga iyo shartiisii waa kii halka ilaahay ku halaagay qisatu ashaabul fil halkaas waanu ka soo hadalnay YouTube ku jirta hadaad u baahantaan halkaas ayaad ugu laaban karaysaa hadaba daawada saxaabadii markii ay yimaadeen meesha la yiraahdo Hudaybiya oo halka ay yimaadeen halka ay difaac ka galeen halka ayaana nabiga sallallahu alayhi wasallam soo istaagay Quraysh markii ay maqashay waa ay la yaabtay oo ninkii duulaadka Makka ayuu taagan yahay waxba asaga Kaabadii wax weyn uma dhaxeeyaan ciidankooda ay la soo dhaqaaqeen halka ay la soo istaageen waxa weeye si wada walba ha noqoto si kastaba waa inay u diidaan ayagoo doonaya si kastaba inay u diidaan inuu galo nabiga sallallahu alayhi wasallam baytul haram oo halka ujeedkii uu yimid uu maartay galo ayagoon u ogolayn nin la yiraahdo Budayl ibn Warqa oo ahaa ugaaskii nimanka la yiraahdo Khuzaaca qabiilka la yiraahdo qabiilkaas oo ahaa
qabiil nabiga sallallahu alayhi wasallam gaalkooda iyo muslimkooda nabiga ku xiraa oo nabiga sallallahu alayhi wasallam akhbaaraadka u keeni jiray oo sirdoonka nabiga sallallahu alayhi wasallam inta badan ba wuxuu ka heli jiray nimanka Khusaaca leeyahay marka nimanka ayaga sayidkoodii ayaa Quraysh u tagay wuxuu yiri niman yahow ninkan anaga u tagayo Muhammad anana ka wardoonayo wax u socdo ma dagaal buu doonaya ma sadan kale ayuu leeyahay budeel waa soo dhawaaqay nabiga sallallahu alayhi wasallam ayuu u yimiday wuxuu yiri war Muhammadow maxaa doonaysaa waadigan ciidanka wata maxaad rabtaa nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa uu ku yiri anigu dagaal uma socdo beedkan ayaan u imid anigu weyneenayo anigu cumraysanaya ayaan beedkan ilaahay u imid oo soo siyaartay hadii Quraysh ay fasaxdana waxa weey waan cumraysanaya waana ka laabanaya haday diidaana waa la dagaalamaya anigu dagaal ma doonan oo marka hore dagaal buu iman ninka budeel Warqaha sayidka Khusaaca waa u laabtay Quraysh ayuu ku laabtay waxa uu ku yiri Quraysh Muhammad waxa uu sheegay inuu yimiday inuu beedkan cumraysto asoo beedkan weyneenayo yimid beedka ayuu u socdaa adinkeedii ma socdo dagaalna ma socdo fariinta ogaada Quraysh gaashaanka ayay u direen waa ay diideen in maartayaahi Muhammad uu soo galo halkan ayagoon raali ka ahayn oo waxay yiraahdeen Carabi wallahi inaysan ku sheekaysanaynin ninkii Muhammad ahaa Quraysh ugaasidu ku dhameeyay dagaalka Badr ayaa maantana ayagoon ongoleen xoog intuu tagay halkii ku soo cumraystay Carabi ku sheekaysamaysa warka asaga hay'aad ka inaan aqbali warka Quraysh marka waxa la joogo ninka la yiraahdo Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi oo garanaysan waa ninkii Taif ugaaska ka ahaa waa ninkii Quraysh yiraahdeen waagi nabiga sallallahu alayhi wasallam uu joogay Makka oo san hijroonin quraankan ma lagu soo dejiyo laba nin oo ka soo kala jeedo mid kamida magaalooyinka Makka iyo Taif qaalu lawla unzila hada al-Qur'an ala rajulin min al-qaryatayn azim ma lagu soo dejiyo yiraahdeen badal magaalo waaweyn nin ka soo jeedo ma lagu soo dejiyo quraankan ninkaas oo ay u jeedaan Urwa ibn Mas'ud oo ka soo jeedo sayidkii Thaqif ah amarka leeyahay Utbah ibn Rabi'a oo reer Makka labada nin kamida waxa quraanka lagu soo dejiyo waayay waa ninka ay jiraan oo maxaa ninka wiilkan yar Muhammad ee miskiinka lagu soo dejiyo hadaba ilaahay ayaa meeshuu doono risaaladiisa dhigaya marka ninkan Urwa ibn Mas'ud waa ninka ugaaska weyn wuxuu ahaa nin ugaas ah kaasoo safar badan oo socdaala gala ayuu ahaa oo Room iyo Qaysar waa u tagay oo dawladii reer Room waa u tagay Yurubiyaanka ee Byzantiyiinta sidoo kale waxa uu tagay dawladii reer Faris iyo boqorkoodii waa u tagay sidoo kale waxa uu tagay Najaashiga Ethiopiana asna waa u tagay marka nin boqoradii wax ka garanaya ayuu ahaa waxa uu yiri Quraysh aniga ayaa Muhammad u tagaya warkii u dambeeyay aniga ayaa keenaya sababtoo ah Quraysh ninka sayidka Khusaaca kuma aanay kalsoonayn oo maadaama reer Khusaaca gaalkoodii muslimkooda ay nabiga ku xiraayeen hadaba daawada ninkii waa uu soo dhaqaaqay Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi ahaa ugaaskii reer Thaqif ee Taif xukumay ahaa nabiga ayuu u yimid markaana wuxuu isku dayay inuu maartay nabiga handado oo Muhammad haye waxa uu timid Makka ayaad soo weerartay miya ma ehelkaagii baad soo weerartay miyaad maqashin in adiga ka horeeyay oo hadiiba aad ka guuleysatay reerkan ehelkiisa baabiyay adiga ka hor miyaad maqashay waxa isku haleynaysaa buu yiri kuwan hareerahaaga jooga kuwan wuxuu yiri waxba ku tari maayaan waxa weeye waa dad aad isku ka keento meel aad ka keentay ma ahan dad asala wallahi waxaan indhahoodan u jeedaa kuwan hadii baasha kulaato way ka kala yaacayaan waana ka cararayaan Abu Bakar ayaa isceli waayay marka uu inta maqlay markaas wuxuu ku yiri aad buu u caayay wuxuu ku yiri umsus badrat aniga af Soomaali kuma dhigi karay erga asaga waa af Soomaaliga aad buu ugu xun yahay laakiin yaani waxba uma reeban wuxuu ku yiri niyahow laatay baalka asaga war ma sheegi karay iga wuxuu yiri marka aad buu u caayay Abu Bakar ninka asaga ah markaas Urwa ibn Mas'ud intuu u adkeysan waayay Abu Bakar warkii uu ku yiri ayaa waxa uu yiri wallahi Abu Bakar hadaanan abaal ku haynin oo hada korbad abaal ay gashay abaalka asaga hadaanan ku haynin erga ay tiri waan ku gudi lahayn mid ka daran ayaan ku dhihi lahay ama gacan ka daran baan kugu dhufan lahaa marka ma anaga wuxuu yiraahdaa anagaadna leedahay warnaba Maxamed baad diibaysan wallahi inaan dhiibin hortiisa ku dhamaanayna ninka asaga ah marka nabiga sallallahu alayhi wasallam ayuu soo hor fadhiistay Urwa ibn Mas'ud asoo la hadlaya nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa ag taagan waardiyihiisa shakhsiga ahaa kaasiya waa ma garanaysaa waa ninka leeyahay Mughira ibn Shu'ba waxana adeer rasmi u ah ninkan sayidka ah ee Taif xukume ee nabiga sallallahu alayhi wasallam hadalka ugu yimiday Urwa ibn Mas'ud oo walaalkiis rasmi ayaa dhalay Mughira ibn Shu'ba laakiin ma garanayo oo Mughira marka asaga uu nabiga sallallahu alayhi wasallam waardiynayo korkiisa dhan waa maartay aburbireed iyo wuxuu wataa asaga dhan laba arkay labada indhood kaliya ayaa laga garanaya cid meel kale oo ka muuqata ninka la yiraahdo Mughira ibn Shu'ba ma ay jirto marka wuxuu isku dayay nabiga sallallahu alayhi wasallam tuu hor fadhiistay markuu nabiga la hadlay inuu saa garkiisa inuu saa u laaco oo gacanta u soo aadiyo wana caado ay yaqiineen waagi hore in hadii qofka aad rabto inaad handado in marba garkiisa aad jiido oo caado ay garanayeen carabtu ay aad markuu isku dayay markuu hadalka sheegayo inuu nabiga garkiisa jiido ninkan Urwa ibn Mas'ud asoo doonayo inuu bal argagax geliyo markaas Mughira ibn Shu'ba markuu gacanta u soo taagaba seefta ayuu galkeeda ku jirto uga dhiftaa gacanta markaas ku yiraahdaa ka celi gacantaada rasuulka edeb ma lihidi dhowr mar isku dayo markii daba wuxuu ku yiri mar daba hadaad gacantaada soo taagto bila gacan baad laabanaysaa ugu markii daba uu korin buu intuu u fiiriyo wuxuu ku yiri waa ay ninkani rasuulka ayaa intuu qoslo ma garanaysid miyaa waa wiilka adeerkiisa aad ahayd waa ina walaalka Mughira ibn Shu'ba
korbu fiiriyay markaasuu yiri ma ana saayilada waaya marka nabiga sallallahu ninkii Urwa ibn Mas'uud waxa uu arkay waxyaabo aan weliga arag sababtoo ah sidaan ku sheegay ninkani wuxuu ahaa nin u tagay boqorkii Yurubiyaanka ee Qaysar sidoo kale waxa uu tagay najaashiga Itoobiya oo asna boqor ahaa sidoo kale waxa uu tagay kii dawladda Furus xukumayay la jiray Kisra inta waa uu tagay marka nin aad u garanayo xaaladaha boqorada ayuu ahaa marka waxa uu arkay xilli salaad ayaa la gaaray asoo nabiga sallallahu la fadhiyay Urwa ibn Mas'uud deedna nabiga sallallahu biyo loo keenay uu ku weysiisanayo nabiga sallallahu markuu biyo uu ku weysiisanayo weysidiisi dhibcii ka dhacayay ayaa saxaabadii ay isku dagaalayaan oo nabiga markuu weysiisto hal dhibic oo biyo uu ku weysiisto kamidiba dhulka tiskuma dhahaysaba ilaahay amarkiis saxaabadii baa la isku dagaalaya dhibicii dhacdaba saxaabi baa gacanta u dhiganayo oo ismarmarinaya korkiisa ayuu marinaya ninkii waa la yaab nabiga sallallahu hadii uu doono inuu canuuftaas dhulka dhici mayso saxaabi baa isku dhigayo waana barakaysanaya ninkii waxa ka soo haray yaab iyo ama kaag iyo nataag ayaa ka soo haray ninkii Urwa ibn Mas'uud ee Quraysh ka yimid si uu Maxamed xaalkiisa u soo qiimeeyo in waxa weeye wada hadalna ula galo kadibna Quraysh intuu u laabto warbixinta u geeyo ninkii markuu inta la kulmay waa u laabtay markii uu laabtay Quraysh buu u tagay wuxuu yiri war Quraysh ay dhageysta aniga si fiican ay maqlanayo waxba maydaan arag anaa wax soo arkay niman yaabin baa waa yaabay yiri aniga wareest war maxaad aragtay dheen wuxuu yiri wallahi waxaan u tagay buu Qaysar iyo boqortooyadiisi boqorkii reer Yurub waxa kale u tagay buu yiri boqorkii reer Faris ee Kisra waxa kale u tagay buu yiri Itoobiya iyo Najaash boqorkii Itoobiya fadhiyay Najaash ee Xabasha wallahi ma aragu yiri boqor sida ay asxaabu Maxamed ay u weyneynayaan boqor la weyneeyo wallahi ana weligay arag buu weligay ninkan oo kale weligay ma arag war wuxuu yiri dad waxaan soo arkay buu yiri wallahi inaadan Maxamed gaaraynina ilaa 1400 qof aad ka dishaan ayaguna wallahi inaysan dhimanaynin ilaa 1400 ay adiga idinka dilaan 1400 wax ka badan hadii inta idinka dilaanna maxay noloshu macna leedahay marka ayada warnimo aniga maqlo taliyada hadaad yeelaysaa ninka asaga laba mid yeela ama la heshiiya wada hadal la gala waxa weeye wada hadalka ku fahma laakiin hadaad dagaal isku daydaan waxba ka keenmaysan anu raggan soo arkay raggan la dagaalamaya maahay inta markuu yiri ayay yiri hadaba maxaad ra'yi soo jeedinaysaa maxaad artay lanin weyn ugaas baa tahay nimankii waad u tagtay maxaad ku talinaysaa waxa yiri anu waxaan qabaa inaad maaragtay yahay ninka asaga aad wada hadal la gashaan maadaama aad ka baqaysaan inaad carabo idinku ceebayso oo xoog buu meeshii ku galay leedin yiraahdo si aan arinta ayada ay u dhicin waxaad kula heshiisaan inuu sanadka ayaga ka laabto oo halka uu aado iyo Madiino sanadka xigana uu yimaado adinkuna aad meesha u banaysaan arinta ayada kula heshiiyay ra'yiga asaga ayaa u soo jeediyay Urwa ibn Mas'uud nimankii Quraysh hadaba waa ay yiraahdeen sida ayagoo ku jooga ayaa nabiga sallallahu markan waxa uu go'aansaday in asaga xaqiisa fariinsiday ka socda oo Quraysh u diro oo u sheegayo waxa ay horta u socdaan fariinta maxaa keenay horta dadka nabi maxamed muxuu meesha u yimid cid ka waranta inuu diro nabiga sallallahu ayuu go'aansaday deedna Umar ay u yeeray wuxuu ku yiri Umar oo kaalay waxaan rabaa inaan ku diro Quraysh aad u tagto aad u sheegto inaan dagaal u imaanin ee aan u imid beedka asaga inaan umreysto deedna aan iska laabano inta iga gaarsiin deedna Umar waxa uu rasuulka Allah waan baqayaa nimankan Quraysh waan ka baqayaa bani Adiy nimanka la yiraahdo waad ogtahay oo kama heebeystaan marka Umar qabiilku ka soo jeedo oo bani Adiy la yiraahdo waxay kamid yihiin dadka dhaxdhaxaadka qabaa'ilka dhaxdhaxaadka ee Quraysh ay kamid yihiin laakiin qabaa'ilka waaweyn ee Quraysh ee bani Hashim iyo bani Umayya iyo kale bani Makhzum oo kale ma ahan oo kay darajo hooseeyaan wuxuu marka rasuulka Allah Quraysh waan ka baqayaa cadaawadoodana aad baan ugu dheeraaday way inay garanayaan inaan aad u nacbahay sida daraadood inay dilaan baan ka baqayaa laakiin waxaan ku hayaa nin ay karaameynayaan oo ay ka baqayaan laandheeran oo ayaga dhaxdooda dadku ugu sareeya kamid ah iyo ayuu yiri nabiga sallallahu deedna Uthman ayuu u keenay nabiga sallallahu Uthman bin Affan ayuu diray wuxuu ku yiri fariintanada gaarsiiyay nimankan Quraysh Uthman waa u baxay waxa uu tagay Quraysh fariinta nabiga ayuu gaarsiiyay deedna waxay isku dayeen in Uthman horta bal ay yara ku qanciyaan inuu asagu Kaabada tawaafo deedna uu iska laabto Uthman waa u diiday wuxuu yiri anigu wallahi inaan umreysanaynin rasuulka umreysanin niman waxaan idinkugu imiday igala hadla adigu ninka Uthman ahay agtooda ayuu ku daahay markii uu ku daahay shaa'ica iyo warbeen ayaa baxay oo muslimiinta gaaray in Uthman ay dileen nimankii Quraysh arinta ayada markii ay gaartay nabiga sallallahu aad buu carooday saxaabadii ayuu isugu yeeray dhamaantood kadibna wuxuu yiri waan dagaalamaynaa Quraysh annagana waa isku baabaynaa waxaan ka rabaa bay'atul mawt ayaan galeynaa geeri ayaan ku ballamaynaa inaan nin naga cararaya uusan jirin ilaa aan guuleysano ama waxa way dhamaanteen halka aan ku dhamaan waxa ay galeen muslimiintii oo saxaabadu ka qaaday nabiga sallallahu alayhi wasallam bay'atul mawt geeri ayaa lagu ballamay geeri ila dhamaado ayaa lagu ballamay oo aan la cararin ayaa lagu ballamay 1400 oo saxaabi ayuu nabiga sallallahu alayhi wasallam gacanta geliyay maalinta ayada ah oo ay kula ballamay inaan la cararin oo la dagaalamo nabiga sallallahu alayhi wasallam saxaabi kasta gacanta ayuu gelinay saxaabi kasta gacanta ayuu Umar bin Khattab markii uu nabiga sallallahu alayhi wasallam la bay'atamay ayuu arkay nabiga daali rabo 1400 oo saxaabi oo nin walba gacanta la gelinayo inuu san cararin balan laga qaaday waa arin gacanta ku daalis nabiga sallallahu alayhi wasallam marka gacantiisii ayaa Umar hoos ka qabtay si ay maartay ayan u daalin gacanta Umar baa hoos ka hayay ilaa nabiga sallallahu alayhi wasallam saxaabadii dhamaantood oo bay'a ka qaaday oo geeri uu kula ballamay inaan la cararin saxaabada qaar nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa uu ballan ka qaaday oo bay'a uu la galay wax ka badan laba jeer si saxaabiga la yiraahdo Salaamatu akwa oo kaleeto saxaabi aan caadi ahayn ayuu aad u dagaalyahay deedna nabiga
nabiga sallallahu alayhi wasallam dhowr mar ayuu wax ka qaaday bay'a ka qaaday oo mar walba wuxuu dhahay ya salama ala tubayya salamu ma dila bay'atantid rasuulka Allah waan kula bay'atamay salamu mar kale bay'a gal ila 3 mar ayuu bay'a ka qaaday nabiga sallallahu alayhi wasallam saxaabiga asaga maadaama uu ogaa inuu nin khatar ku yahay dagaalka warkii asaga waxa uu gaaray in muslimiintii iyo nabi maxamed ay geeri inay ku ballameen oo gacanta la isku galshay warkii waxa uu gaaray nimankii quraysh markii warkii uu gaaray hadaba daawade quraysh aad ay u baqday waxay yiraahdeen balaaya soo socoto ninka Uthman ahay marka Uthman lama dilin waa been oo war been oo muslimiinta soo gaaray ayuu ahay warkani waxay yiraahdeen si warka loo beeniyay waa isla saacadan inaan fasaxdaan ninkan Uthman isla saacad ay soo daayeen muslimiintu dagaal u diyaara oo meel laga saraabo aanay dhig lahayn Uthman baa halkan ka soo gaar war waa Uthman waa la arkay deedna quraysh markii oo Uthman ay direen kadib waxay ka daba direen ninka la yiraahdo Suhayl ibn Amr ay ka daba direen Suhaylna halkaas ayuu soo aaday nabiga sallallahu alayhi wasallam markuu Uthman yimid waxay kadibna hadana Suhayl ibn Amr oo arkay wuxuu yiri qad sahula amrukum arintiin waa la sahlay kadibna waxa yimid Suhayl ibn Amr heshiis ayna qaateen nimankii quraysh Suhayl ibn Amr wuxuu yiri waxa lagu heshiiyay in muslimiintu sanadka iska laabtaan oo aanay umraysanin sanadka xigana ay yimaadaan oo ay umraystaan 3 maalin ay joogaan Kaabada oo ay tawaafaan oo arimooda ay dhameystaan 3 maalin kadibna ay Madiina ay ku laabtaan waxa kale lagu heshiiyay in muddo 10 sano oo aan la istagaalin oo dagaal xabad joojin la sameeyo 10 sano oo aan 10 sano la kala nasto oo aan balantana la isaga bixin waxa kale oo ninkii la yiraahdo Suhayl ibn Amr oo heshiiska ku darsaday maadaama uu rabo is leeyahay quraysh heshiis ay ku faanto oo carab ay ugu faanto inaan maxamed ku qasabnay inaan ka celinay Kaabadii oo halka ku yimid aan ku celinay heshiis shuruudo oo arkay marka asaga inuu fiican tahay carabna ay ugu faani karaan ayuu meesha keensaday waxaana uu yiri sanadkiina waa laabanaysaan sanadka xiga ayaadna imanaysaan lambar 2 qofkii naga mida ee islaamo ee maxamed xaggaaga soo aado waad noo soo celinaysaa hadaan anagu raalli ka ahayn waad noo soo celinaysaa qofkii adinka idinka yimaado oo xirta maxamed ka soo goosto iyo muslimiinta ee ma ka yimaadana anagu ma soo celinayno bal dulmiga arag anagu inta la bal arag taagay qofkii naga islaamo ee muslimiinta aada waad soo celinaysaan waad noo keenaysaan qofkii adinka idinka soo baxo anaga noo yimaadana ma soo celinayno oo anaga ayaa haysanayno waxa bandiga afraad oo ahaa in heshiiska asaga qabaa'ilka carbeed qabiil walbaba qoladii doono oo la jirsan karo nimankii qusaaca waxay yiraahdeen anagu waxaan ku jirnaa xilfiga maxamed oo nabi maxamed ayaan jirnaa nimankii liyaada bakr ibn wa'ilna waxay dhaheen anagu waxaan ku jirnaa heshiiska iyo xilfiga quraysh ayaan ku jirnaa oo quraysh ayay raaceen taas macnaheedu waxa weeye qabaa'ilkaas kale ee heshiiska kamidka hadii mid kamid lagu xadgudbo heshiiska halka ayuu ku burburay oo qusaaca la taabto waxay la mid tahay nabi maxamed oo la taabtay hadii bani bakr la taabtana waxay la mid tahay quraysh oo la taabtay marka waxa lagu heshiiyay in 10 sano xabad joojin la qaato muslimiintu xilliga asaga ay laabtaan oo Madiina ay ku laabtaan sanadka xigana ay yimaadaan in ninkii quraysh kamid ah islaamay muslimiinta aadana nabi maxamed uu soo celiyo kii nabi maxamed muslimiinta ka yimaadeen halka iyo quraysh aadana aan la soo celin sida ayaa lagu heshiiyay oo heshiiska ku dhacay heshiiskii markii la qorayay Ali Abi Talib ayuu nabi sallallahu alayhi wasallam yiri Ali uu qor heshiiska deedna Alina uu qorayay nabiguna waa uu meerinayay Suhayl ibn Amrna meeshii ayuu taagan yahay nabigu wuxuu yiri Ali waxaad qortaa bismillaahir rahmaanir rahiim Ali dhag bismillaahir rahmaanir rahiim waa qoray ninkii Suhayl ibn Amr waa soo bad wuxuu joog bismillaahir rahmaanir rahiim anagu rahmaan garan mayn wax rahmaan la yiraahdo ma naqaan anagu hadaa quraanka akhrisay daawade waxaad arkaysaa ayad ilaahay ku leeyahay wada qiila lahum usjudu lirrahmaan qaalu wa mar rahmaan anasjudu lima ta'muruna wa zaadahum nufura hadii la yiraahdo Allah rahmaanka u sujuuda qaalu wa mar rahmaanku waa ay leeyahay sida daraadeed magaca rahmaan qurayshimaan aan goleyn waana diidaneed marka bismillaahir rahmaanir rahiim wuxuu anagu rahmaan garan mayno walaakin uktub bismika allahumma sida aan ban caadada noo ahayd waxaad qoraysaa bismika allahumma qor deedna nabi sallallahu alayhi wasallam Ali wuxuu ku yiri tir rasuulka Allah wuxuu yiri magaca ilaahay ma tiri karo rasuulka ayaa wuxuu ku yiri Ali xageed ku qortay rasuulka ummi ayuu ahaa waxna ma qori jirin waxna ma akhri jirin taasina ceeb ma aha ee nabiga sharafkiisa ayay ahayd ilaahay baana calaamad uga dhigay iyo mucjiso si uu maartay asoo ummi waxna aan akhrin waxna aan qorin haddana quraanka mucjisada oo ilaahay ugu dejiyo carab ay maartay ay la yaabaan qaside qof waxa weeye ummiye uu ku keeni kara quraanka noocan mucjiso u yahay darteed iyo si loo tuso quraysh iyo carab in waxaan alla xaqi ka socdaan rasuulkuna uu xaq yahay oo Allah soo diray tusinayo ayaa sida ilaahay uu yeelay sida daraadeed nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri xageed ku qortay Ali wa Ali waa tusay rasuulka ayaana tiray wuxuu yiri waxaad qortaa hada ma salaha alayhi Muhammad rasuulullah Suhayl ibn Amr kani waa kii uu nabi maxamed uu kula heshiiyay ninka la yiraahdo Suhayl ibn Amr waa soo booday wuxuu yiri war hadaan rasuul Allah ku naqaano ma beedka Allah ka celi lahayn oo miyaan kula dagaalami lahayn war anagu rasuul Allah kuma naqaane Muhammad ibn Abdullah baan ku naqaanahay asaga ku qormeesh deedna rasuulka sallallahu alayhi wasallam hadana waxa uu yiri tir ayuu ku yiri Ali waa uu diiday inuu tiro rasuulka ayaa yiri tus waa uu tusi rasuulka ayaa tiray Muhammad ibn Abdullah ayaana lagu qoray heshiiska asaga halka ayaa lagu qoray marqaatina waxa laga dhigay Abu Bakr Siddiq iyo Umar ibn Khattab iyo Abdullah ibn Suhayl ibn Amr oo ah wiil u dhalay ninkan Suhayl ibn Amr oo muslimiinta kamid ah oo islaamay ninkan ayaa lagu xanuujinaya bal halkan ninkan waaska ayaa lagu xanuujinaya in wiilkiisi soo muslimiinta matalayo oo marqaati ka yahay heshiiska asaga dhinaca kalena Suhayl ibn Amr iyo laba kale oo Quraysh kamid ah ayaa ka qayb galay oo marqaati ka noqday heshiiska sida ayaa daawaday waxa
waxa ku dhacay heshiiskii sulhul Hudaybiya oo ay ku heshiiyeen nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo Qurayshi in dagaalka la joojiyo muddo 10 sano muslimiintuna ay xilligooda sanadka asaga ay ka laabtaan Kacbada oo aanay umraysanin xaqana ay tagaan kadibna ay soo laabtaan arinta marka dhacday kadib nabiga sallallahu alayhi wasallam saxaabadii waxa uu ku amray in maadaama umra la soo xirtay oo la xarman yahay in la xalaaloobo oo xoolihii hadigii la qalo madaxna la xiirto arinta iyadaana way qaado waayeen saxaabadii markuu arkay nabiga sallallahu alayhi wasallam amarkii faray kadibna ay fartoomi diideen Umm Salama mu'miniin Umm Salama ayuu nabiga sallallahu alayhi wasallam u galo weeri dadkii baan amar siinaya saxaabadu waa ay wada xanaaqsan yihiin dhamaantood waxa waaye meel laga sara dhiig male umray u yimaadeen haddana iska laabta adinkoon umraysan halka ay Madiina meesha ka timideen ku laabta ayaa soo baxday tiibay ka wada xanaaqsan yihiin mar kama ahan rasuulkeena caasiyaan caradi ayaa la tagtay inna rasuulka sallallahu alayhi wasallam Umm Salama ayaa waxay kula talisay waxay rasuul Allah dadku way wada xanaaqsan yihiin waxaad samaysaa adoo cidna la hadlin intaad laabato hadigaagana gowrac madaxaagana xiiro rasuulku sidii ayuu sameeyay oo hadigina waa uu gowracday madaxana waa uu xirtay muslimiintu markay arkeen nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa uu sameeyeen dhamaantood ayana waa ay ku daysadeen oo sidii ayay sameeyeen sidii ayana muslimiintu ay ku soo laabteen halka ayaan ku soo gabagabeynaa qisadan daawade haddii aad ka heshay muuqaalka like saar subscribe share garay aad baad u mahadsan tahay la soco muuqaalka xew